بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay qowluhu tacaala suuratu almutafifiin kalaa ina kitaaba alabraari lafii cilliyiin wamaa adraaka maa cilliyuun kitaabun marquum yashhaduhu almuqarabuun aayaadkan ilaahi subxaanahu wa tacaala inta suuradda ka dhiman badankeed dadkii ilaahay iyo aakhiro rumeeyey iimaanka iyo towxiidkana ku dhintay abaalka ilaahay agtiisa ku leeyihin subxaanahu wa tacaala ayaa looga sheekaynayaa qayb abaalka ilaahay ku leeyihiinba waxaa lagu darayaa gunaanadka suuradda in ciddii ilaahay beenisay ee khayrka ay ku kari waayeen ilaahayna ka caabudi waayeen oo la cadaabaya ay arkaan kalaa ha ka daayaan beeninta ilaahay iyo aakhiro ay beeninayaan inna kitaaba alabraari dadka baariyada ah kitaabkoodu la fii cilliyiin meel cilliyiin la yidhaahdo ku jira ka diiwaan gashan yahay lagu ilaaliyaayoo lagu kaydiyaa markay dhintaan waa kan saxaa'ifta acmaasha qofka la xirayo wax dambeoo laga sii diiwaangeliyoo isaga wakhti kasta loo daba socdo ma laha inqataaca camaluhu wey wixii asbaabteeda uu yeeshay oo laga dabageyn doono maahane marka halkaa cilliyiin la yidhaahdo ayaa kitaabkii iyo diiwaankoodii la geynayaa wamaa adraaka maxaad ka og tahay maa cilliyuuna cilliyuun waxa ay tahay maxaad ka og tahay kitaabun waa kitaab marquumun si fiican loo qoray qoraal cadcad oo bayaansan yashhaduhu waxaana xaadiroo jooga halka uu yaallo almuqarabuuna malaa'igta ilaahay loo dhoweeyey oo ah qaybta malaa'igta ugu fadli badan aayaddani waxay tilmaantay ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala dadka abraarta ah kitaabkoodii halka uu yaallo sidii loo tilmaamay dadkii fujaarta ahaa kitaabkoodu halku yaal kitaabkan abraarta halka cilliyiina uu yaallana waxaa ammaantiisa lagu sii daray in cidda gacanta ku haysa ee ilaalinaysa ee halkaa gaadhi kartaay ay tahay malaa'igta dabaqada ugu fadliga badan oo ah kuwa muqarabiinta ah cilliyiin waa meel toddobada samo ee kore ah ama ka sarraysa weeye halkaas toddobada ardo iyo dhul kan ugu hooseeyana sijiin weeye toddobada samo korkoodana cilliyiin weeye meel cilliyiin la yidhaahdo oo diiwaanka dadka mu'miniinta la dhigo ayuu ilaahay ku diyaariyey subxaanahu wa tacaala xadiidkii baraa bni caazib ee sunanka badankood ay warinayeen ee geerida ka sheekaynayey waa kii isagana nafta muuminkaa sheegaya marka la qaado kor baa loo sii qaadayaa samadan adduunkaa la garaacayaa ka furaa la leeyahay dabcan malaa'igta joogtaay way weydiinayaan wa'ayo magaciisii ugu jeclaaya ugu fiicnaa baa la sheegayaa albaabkaa loo furayaa samada ilaa samada kale waa la sii wadayaa ilaa toddobaad laga gaaro samo walba malaa'igteeda baa sii sagootinaysa oo sii jidmarin oo gaadhsiinaysa markay intoodii ka baxaan ee ta kala gaaraan way wareejinayaan waa ka soo harayaan ilaa toddobada samo sidaa lagu dhaafiyo markaasuu ilaahi subxaanahu wa tacaala samada toddobaad markuu gaaro ilaahay odhanayaa uktubuu kitaaba cabdii fii cilliyiin addoonkayga kitaabkiisa cilliyiin ku qora kadibna ku celiya dhulka ha lagu celiyo naftani jirkeedii ha lagu celiyo ilaan marka la aaso naftii lagu soo celiyo su-aashii munkar iyo nakiir ay timaaddo halkaana lagu sugo ilaa qiyaamada laga gaadho baa ilaahay yidhi wuxuu leeyahy waxaan u ballanqaaday inaan iyada ka abuurayo kuna celinayo kana soo saarayo minhaa khalaqnaakum
wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa halkaasaa sidaa loogu soo celinayaa dhulkii haddaba intaan dhulkiiyo nafta jirka lagu soo celin inaan su-aashaba la gaarin ayaa intaasoo dhan la soo marinayaa samadaa toddobaad ee ugu korraysa iyo dhulka toddobaad ee ugu hooseeya halkaasaa la kala noqon doonaa dadka ahlulcilliyiinkiihii darajaad badan bay axaadiid ku soo arooreen inta badan muran ku jiro sixadooda iyo sugnaanshahooda laakiin sidee baa lagu gaari karaa darajada buuggaaga cilliyiin in lagu daray iimaanka kadib nabigeena alay slam xadiid abu daawuud iyo axmed iyo warinayaan wuxuu ku leeyahay salaatun fii ihri salaatin laa laqwa baynahumaa salaad faradkii markaad tukato inaad sunnadiina raaciso iyadoon hadal iyo wax maalaayacniya dhexdooda aadan gelinin kitaabun fii cilliyiin cilliyiin in la isku qoro baa lagu gaadhaa sunnada waan fudaydsanaayo durbo waynu didnaa waynu yaacnaa laakiin caawa ugu darajada waxyaabaha lagu gaadho wa min xadiidi abi umaamata albaahiliya radia allahu canhu wa ardaah salaatun fii ihri salaah laa laqwa baynahumaa kitaabun fii cilliyiin halkaa sidaasaad ku gaari kartaa faradkii iyo sunnada inaad israaciso dabcan iimaankii iyo camalkii saalix ahaa weeye salaadaha la israacinayana camalka saalixa weeye intaa ka badanna aayaadka dambe waxaan ku arki doonnaa abraartaa la sheegayaay abaalka ay leeyihiin marka cilliyiinka lagu soo qoro jannadana abaalgudka ay ku leeyihiin baa aayadaha dambe laynagu sheegi doonaa yashhaduhu waxaa xaadiraya almuqarabuun malaa'igtu way kala darajo badan tahay waana kala fadli badan tahay malaa'igta muqarabiinta ugu fadli badan muqarabiintana qayb kuruubiyiin la yidhaahdo baa ugu sii fadli badan qaybtaa kuruubiyiinta la yidhahda xamalatul-carshi baa ka mida malaa'igtan saadatulmalaa'ika oo jibriil iyo miikaa'il iyo israafiil baa ka mida culimmadu waxay yidhaahdaan markii malaa'igta la isku celceliyana jibriil baa ugu fadli badan miikaa'il baa ku xiga israafiil baana ku xiga jibriil wuxuu ugu fadli badan yahay dee waaba nabiga waa malagga ilaahay u doorto sayidulmalaa'ika ah in fariintiisana iyaga uu gaadhsiiyo waxyigii ay quluubta iyo iimaanku ku noolaan lahaayeenna ambiyada ergiga gaadhsiinaya uu noqdo taasi waa xayaatadii ruuxda iyo iimaanka iyo qalbiga oo tan ugu qiimo badana xayaatadii jirka iyo noloshii dadku ay xayawaanku noolaan lahaayeenna roobkaa asaasu ah roobkana waa malagga la yidhaahdo miikaa'il malakulqatri roobka weeye roobkaa iyo biyahana waa ka ilaahay lahaa wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun risiqaa dhirtaa soo baxaysa biyaha la cabaya dadkaa waxbeeranaya roobkaa samada ka yimid marka waxaa la yidhi xayaata nolosha xayaatada ee jirka iyo ay noolaanayaanna roobka asaasu ah miikaa'il baana u xil saaran noloshii iimaanka iyo qalbiga iyo ruuxda oo ta aakharo janno lagu gaarayana waxyigaa lagu hagaayoo lagu nooleeyaayoo miikaa'il waay goobta hadhow qofkii nabadii waxyigiina qaatay nicmadiina ku shukriyaya kaan ku shukriyin nolosha lagu kala abaalmarinayana nafkhada israafiilu afuufayay ku soo noolaanayaan marka saddexdaasi sidaasay ugu noqdeen saddexda ugu muhiimsan ama acmaasha ugu muhiimsanaya ina alabraara dadka baariyada ee kitaabkoodii cilliyiin lagu qoray lafii naciimin nicmooyin iyo raaxay ku jiraan markay aakhiro tagaan qabriga in yarba ha uga bilaabatee midda hadda laga sheekeynaya waa midda jannada markay galaan liibaanta ay helayaan lafii naciimin nicmooyin bay ku jiraan calal araa'iki sariira korkood ayay yanduruuna ka fiirinayaan tacrifu waxaad ka garan markaad aragto fii wujuuhihim wejigoodaad ka garan nadrata naciimi nicmadiiyo raaxada ay ku jiraan iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda wejigooday ka wada muuqataay oo ka wada nuuraysaa yusqowna waxaa laga waraabiyaa
min raxiiqin khamro saafi'a la waraabiyaa oo makhtuumin la sii daboolay oon dabaylihi inuu wax sii mara la doonaynin khitaamuhu gunaanadkeeda ugu dambeeya marka la cabbayana miskun ay tahay mid carfaysa wa fii daalika midkaas nicmada iyo darajaadkaas in la gaadhaayey falyatanaafas ha u tartamaan ha u baratamaan almutanaafisuuna kuwa tartamaya wa misaajuhu sharaabka ay cabbayaan wa misaajuhu waxaa lagu daraa oo lagu barxaa min tasniimin tasniim in la yidhaahdo durdura wax laga soo qaaday baa loogu khaldaay oo loogu dhex daraa caynan weeye ama caynan xaal ay tahay tasniimkaasi il durdura oo yashrabu bihaa ay saafi uga cabbaan almuqarabuuna dadka muqarabiinta ee mu'miniintii ay saafi uga cabbaan ayaa iyaga laga soo qaada abraarta loogu daraa sharaabkooda kale ayaddan halkan waxay sheegtay ahluljannaha nicmooyinka gaaraya laba sinfiya laba dabaqa inay yihiin muttaqiin iyo abraar inay yihiin waxayna sheegtay muqarabiin baan leh muqarabiintu inay ka sarreeyaan darajada abraarta ay ka sarreeyaan oo ishaa tasniim la yidhaahdo muqarabiintana iyadoo saafi ay cabbayaan abraartuna intii wax laga soo qaadaa ka mida cabbitaankooda loogu darayo isagoo wax lagu daray ninka cabbay iyo iyadoo saafiya dadka cabbayna ay kala sarreeyaan sidaa marka la yidhaahdo aayaadkani waxay la mid yihiin aayaadkii suuratu lwaaqica dadka ilaahay saddex sinfi buu ka dhigay fii suurati alwaaqica asxaabu الshimaali iyo asxaabu اlyamiini waasaabiquuna asaabiquuna maxaa ku xiga ulaa'ika almuqarabuuna asxaabu اlyamiin iyo muqarabiintu waa laba kala darajo asxaabuulyamiinkaas muqarabiintu waa saabiqiin meelaha qaarkood halkan haddii la yidhi waasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuuna haddii la yidhi meelaha qaarkoodna saabiqiin keliyaa lagu magacaabay meelaha qaarkoodna muqarabiin keliyaa la yidhi marna labaduba inay isku mid yihiin baa suuratulwaaqica laynoogu sheegay haddii suuratulwaaqica asxaabuulyamiin iyo muqarabiin laga dhigay suuratulmutafifiinna laga dhigay muqarabiin iyo abraar halkaa waxaad ka garatay abraarta iyo asxaabuulyamiinka isku mid ah muqarabiinta iyo saabiqiintana waa isku mid abraarta iyo asxaabuulyamiinku magac saddexaadna way leeyihiin dadka mu'miniintii intaa keliya ma ahane qayb saddexaad oo suuratu faatir lagu sheegay baa jirta uma awrasna alkitaaba aladiina اstafaynaa min cibaadina faminhum ظaalimu linafsih waminhum muqtasidu waminhum saabiqun bilkhayraat saabiqun bilkhayraati saabiquuna muqarabiintii waay muqtasidkuna abraartii asxaabuulyamiinkii weeye daalimu linafsihina in kala weeye oo se labadaba ka darajo hoosaysa saabiqiintuna waa darajaad badan iyaga laftoodaa sii kala sarreeya markii saabiqiin iyo muqarabiin ay galaan bay sii kala sarreeyaan abraar ama muqtasidiin ama asxaabuulyamiinna markay galaan laftoodu way kala sarsareeyaan daalimun linafsihina qadarka uu naftiisa dulmiyey way kala badan tahay iyaga laftoodu qadarka dulmigooda markay asalkii iimaankii iyo islaamnimada wada yeeshaan qadarka dulmu linafsihida way kala badan yihiin saas darteed labada derajada badan ee la doonayo inaadan saabiqiinta noqoto haddaad ka hoos dhacdana asxaabuulyamiin iyo abraarta aadan ka hoos dhicin weeye kuwa aada fadliga badan loogu sheegay daalimun linafsihi qaybo ka midana waa kuwa iyagoo dhaawacan siraadka gudbi doona qaybna waa qaybta intii ahlul iimaana jahannamo galaan laga soo saari doono
kuwa laga soo saarayaa soo kala horeyn doono ilaa la xadiid ka sheekeeyey kan ugu dambeeya laga soo saarayo jahannamana isku si u wada gaari mayso isku waqtina ku wada jiri maayaano dulmigoodaa kala weynaa saddexdaas sinfi weeye ahlul iimaanka aakhirka jannada isugu tegi doona dadka jannada marka horeba gelaya haba kala dheereeyaanna waa labadan sinfiye abraarta iyo muqarabiinta wey culimmadu waxay isweydiiyaan aayaddaa suuratu faatir ah maxaa daalimun linafsihi looga soo hormariyey marka hadday labada kale ka qiimo badan yihiin waxay sheegeen laba xikmadood oo ku jirtay qolaba mid sheegeen labadabana waa noqon kartaa mid weeye dadku jannada gelayaay daalimun linafsihi bay u badan yihiin si aynu u fahanno asxaabuulyamiin waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen dadka xaaraamtana iska ilaaliya waajibaadkana ilaaliya laakiin aan sunanka badinin heer fiican aan gaarsiinin laakiin waajibkana waa ilaaliyaa ma dayaco xaaraamtana waa iska ilaaliyaayoo kuma dhaco abraar iyo asxaabuulyamiin iyo muqtasidiin waayo dadka waajibaadka ilaaliya xaraamta iska ilaaliya nawaafisha iyo sunanka badiya makruuhaadka ka fogaadana saabiqiinta iyo muqarabiinta weeye dadka xaaraanta qadar ay gaartaba gala waajibaadkana wax ka dayacmana daalimun linafsihi waayo saa darteed ahlul iimaanka iyo ahluljannuhu daalimun linafsigiyay u badan yihiin muqarabiintu waa in yar saa darteed suuratu lwaaqic ilah buu ku sheegay wuxuu yidhi hullatun min alawaliina wa qaliilun min alaakhiriin jamaaco ka mida ummadihii hore way ka mid yihiin ummadan dambana in yar baa ka gasha darajadaas nusuusta qaar bay culimmadu ku fasireen yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaabin lamaba xisaabinayana saabiqiinta iyo muqarabiinta weeyay culimmada qaar yidhaahdeen kuwa la yidhi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiranna abraarta iyo asxaabuulyamiinka waaye kuwa si fiican loola xisaabtami doonana ee qaar jahanname xisaabta lagu geyn doona dibba ha laga soo saarana daalimun linafsihi waa saan u badanna walidaalika caaisha radi allahu canha wa ardaaha marka la weydiiyey saabiqiinta iyo saabiqun bilkhayraati iyo muqtasidin iyo daalimun linafsihi markay saabiqiintii sheegtay ay muqarabiin sheegtay asxaab muqtasidiintiina sheegtay waxay tihi inta soo hartay baa daalimun linafsihi aniga idinkoo kaleetaa bay tiri oo innaga ah bay tiri markay saxaabadiisaa leeyihin innaga xaggee joognaa baad u malayn dee daalimun linafsihi baynu lafteennu meel hoose nin baa laga sheekeeyey jannada wuxuu sameeyeyna waa isogyahay camal yaridiisana waa garanayaa waxaa u soo baxday jannada meel baan iska gaaraynina markii laga sheekeeyey jannada wuxuu yidhi ilaahu aniga meesha kabaha la dhigto yaa i geeya buu yidhi intaa haddaa hela waa i deeqdaa qof walba himmadiisa iyo camalkiisu halkay geysa waayo marka aayaddaas minhum daalimun linafsihi way ku caddahay ahluliimaanka inay yihiin uma awrasna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina addoommada ilaahay biliimaani ku doortay fi ljumla fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun xikmadda loo soo hormeeyey daalim linafsihi haddaba laba weeyay yidhaahdeen marka koowaad ummadda jannada gelaysaaba daalim linafsihi u badan midda labaadi waxaa loo soo hormariyey meesha naxariista ilaahay laga sheekaynayo saabiqiina loogu dambaysiiyey halka suuratulwaaqica muqarabiinta la hormariyey faama in kaana min almuqarabiin farawxun warayxaanun wajannatu naciim waama in kaana min asxaabilyamiin gadaal baa la mariyey tan saabiqiintii maxaa loogu dambaysiiyey daalim nafsi loo mariyey waxaa ka mid a xikmada in addaalimu linafsihi uusan ka quusanin naxariista ilaahay assaabiqu bilkhayraatina camalkiisa uusan iskula weynaanin adar gadaal baaba lagu geeyey soo maaratid camal la iskulama weynaado inuusan iscajabin kanna uusan dhihin gadaalba haddii lagu mariyey meel laba soo gaari maysido uusan naxariista inuu geli kara ka quusanin iyo dadku inay u badan yihiin labadaa xikmadood baa suuradda faatira la sheega asbaabta inal abraara dadka baariyada
oo ah kuwii asxaabulyamiin meelaha qaar lagu sheegay meelaha qaarna muqtasidun lagu sheegay kuwa dhexdhexaystay la fii naciimin nicmooyin bay ku jiraan ninkii nabiga u yidhi alai slam ee weydiiyey ee rasuulka ilahi aragteeda axlaltu lxalaala wa xaramtu lxaraama muxuu yidhi maxaa ku xigay intaas walam yazid calaa daalika xaggee ahayd jannada ma gelayaa ui markaa kadib nacam buu waad gelaysaa jannada masu inuu galaayey inuu iimaankii iyo camal saalixa la yimaado dembi xayirana iska ilaaliya kaga xidhanta ninkii xaaraantaba iska ilaaliyay waajibkiina sameeyey wax dembi uu galay oo miisaankiisa dembiga cusleeyaba ma jira wixii ka dhacayna ka toobad keenay marka abraartii oo ah asxaabulyamiin oo ah muqtasidiin lafii naciimin bay ku jiraan cala alaraa'iki sariiraha korkooda yanduruuna ka fiirinayaan wax kastoo ilaahay u qadaray inay fiiriyaan cumuumka uus fiican waxay fiirinayaan naciimkii ilaahay siiyey bay fiirinayaan iyo mulkiga la siiyey oo ilaahay uu mulki ku magacaabay fii suurati alinsaan maxay ahayd aayaddii uma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiiran mulkigiisa iyo hantidaa ilaahay siiyey iyo khadamku u adeegaya wuu fiirinayaa markii ilaahay wejigiisa inuu arko loo ogolaadana cala alaraa'iki yanduruuna way ka fiirinayaan markuu cid kale inuu soo booqda rabana sariirtu waa rumuudkeedu qalbiga rabitaankiisa markay la duusho dusheedaasuu ka fiirinayaa gaaladii ahlu naarka la cadaabaya markuu fiirinayana cala alaraa'iki buu ka fiirinayaa marka cala alaraa'iki bay yanduruuna ka eegayaan oy ka fiirinayaan sariiraha dushooda iyagoo wix allaalay wixii ay doonayaan inay arkaan tacriifu waad ka garan fii wujuuhihim wejigooda nadrata naciimi nicmada iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda siyaabo badanoo looga garanayuu qur-aanku sheegay mar waa faraxsan yihiin oo qofka faraxsan wejigiisa waa laga gartaayoo wuu iftiimaa inay bishaaraysanayaan daaxikatu mustabshira qoslaysoo bishaaraysanaysa leeyihiin qofku markuusan xanuun haynin dharagsan yahee ladan yahay wax fikir iyo walwal iyo walbahaarana haynin iyadana wejigiisa waa iftiimaa waa dhalaalaa halka fikirka iyo xanuunka iyo walbahaarka iyo gaajadu ay wejiga madow iyo murugo geliyaan qof dharagsan hurdo ka dhargay jaaraaxo ka dhargay cunno iyo cabitaan ka dhargay dhimasho ka baqaynin xanuun ka baqaynin wax indhihiisa dhiba aan arkaynin wax naftiisu dhibsatana aan arkaynin salaaman salaaman laa laqwun fiiha la yidhi ma ka dhimanaya la yidhi qofkaasee dee inuu farxo oo raaxaysto oo ilaahay baa kaa reerle noqdayoo falaa askhatu calayka abadan la yidhi weligaa ku caroon maayo tacriifu fii wujuuhihim baad ka garan nadrata naciim nicmaday ku jiraan dhalaalkeeda iyo iftiinkeeda wejigoodu ka muuqda yusqowna waa la waraabiyaa min raxiiqin khamra saafiho makhtuumin la daboolay waxaa la jecel yahay isagoo afku dadan yahay baad jeceshahay inuu yimaado isagoo afku haawanaya in lagu keenaayey lama jecla aayaddan waxaa laga gartay yashrabuuna lama dhihin aayaddan yusqowna waa la waraabinayaa waa loo adeegayaayoo waa loo khidmaynayaabay ka dhigantah in loo khidmaynaya macnaha aayaddu xambaarsan tahayna suuratu linsaan iyo meelo kalaa lagu sheegay yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun biakwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min maciin bay la wareegayaan koobabkii iyo weelashii kii khamrigu ka buuxeenee la waraabinaya min raxiiqan iyadii sow maaha wildaanu mukhalladuun weligood meesha kula jiraya yaa ka mid ah caruurtii gaalada iyagoon qaan gaadhin dhintay baa ka mid ah nabiga marka la weydiiyey asaxa xadiidii anas iyo kayrkii awlaadu lmushrikiina marka la weydiiyey wuxuu yidhi khadamu ahli ljannati waay ahlujannaha kuwa u khidmaynaya wey iyagu jannaday ku jiraan hadagoo markaa
haddii lagu yidhahdo awlaadulmushrikiin yarida ku dhintay jannaday gelayaan maxay ka qabanayaan markaad tidhaahdo dee camal saalix oy samaysteen oo naciim iyo janno lagu abaalmariyo ma laha waxay naar ku galaanna ma jiro dadkuna fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri weeye jannaday galeene maxay isnoqonayaan khadamu ahli ljannati weeye nabigay ka sugan tahay sala allahu calayh waalihi wasalam marka yusqoona waa la waraabinayaa wildaanu mukhalladuune waa waraabinaya oo khadamu ahli ljannati ah min raxiiqin khamro saafi oo makhtuumin la daboolay khitaamuhu laba macnoba culimmada mufasiriintu way mareen in la yidhahdo khitaamuhu gunaanadkiisu cabitaanka markaad cabto ee aad dharagto waxaa la yaqaanaa adduunka gadaal buu ka kharaaraadaa wixii horay ka macaanaa haddaad aada uga dharagto dhib buu kuu geystaa ama waad yaqyaqsataa waad lalabootaa dharagtu markay kaa badata marka dambe kan waxaa la leeyahay maya inta u dambaysa ee baaba sii carfaysaba khitaamuhu kan ugu dambeeya markuu cabo noocyo badan la siiyo kuu ku khatimaya marka ugu dambaysa uu ka dhargo bay sii carfaysaayo udgoon baa ka soo baxaya sida waa tafaasiirta culimmadu mareena qole waxay khitaamuhu makhtuumin waa la daboolay wixii marka la daboolo waxaa hoosta lagaga alxamayaa miskun baa lagaga alxamayaa oo daboolna waa daboolkiiyo weelka lagu daboolay meel bay iska qabtaan meeshaa daboolku haddaan wax lagu adkaynay soomaaliga biyahan aan cabbaynaay waxbaa lagula sii xidhaa saan wax uga balqanen uga daadan soo intaa ujeeddadu ma aha waraaqahana kan waxaa kaloo ku jirta in haddii la furay la garta sooma saa darteed waraaquhu mararka qaarkood markaad ka yaabaysa in la furo waxbaa lagu dhejiyaa jabaya haddii la furo si qofka loo geeyey uu gartay in lasoo furtay oo lasoo akhristay waxay leeyihiin daboolkii waxaa lagu samaynayaa wax kale oo ku alxaman oo lagu caddaynaya inaan hortiin la furin khitaamuhu haddaba alxankiisa markii baadiyaha aan joognay magaca kale aan dhihi jiray ningaxiisaan dhihi jirnay markii de dhiisha la daboolo ee biyaha lagu dhaaminayo caanaha reerkana la raraya ama la qaadaya hadday ruxato way balbalqan jirtay halka hoose maxaa lagaga mari jiray mara yar soo mahan ama dun si ayna u daadaadanin maxaa dhihi jiray ama mayrax ama baadiyuhu ama mayrax bay ahayd ama maro taas oo kaleetaa lagu fasiri jiray dee baadiyuhu taasay yaqiineen hadda magaalada laakiin mara iyo maydhax lagama isticmaalee ama bacdaasaa lagu xeeyaa ama waxyaaba biriya hadday ka samaysan yahay wuxu alxan yar baa lagu dhejiyaa kaasaa khitaamuhu looga jeedaa miskan way wa fii daalika kaas nicmada iyo barwaaqada iyo raaxadaa taalla falyatanaafas ha u tartamaan almutanaafisuun abraarta in la waraabinaya sidaa qur-aanka meelo badan baa la inoogu sheegayo ina alabraara yashrabuuna min kaasin kaana misaajuhaa kaafuuran caynan yashrabu bihaa cibaadullaahida muqarabiintii waaye yufajiruunahaa tafjiiran iyagayba usoo buqanayaayoo taabanaya halka abraartii wax looga soo qaadayo min ka'sin kaana misaajuhaa wax loogu darayo falyatanaafas ilmutanaafisuuntaas suuratu saafaad marka laga sheekeeyey laba saaxiibba ahaydoo midna janno galay midna naarta galay kii ahlu jannahabaa markii dambe xasuustay isagoo jannada ku jira uu midkii xasuustay fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaala qaa'ilu minhum inii kaana lii qariin yaquulu ainaka la min almusadiqiin aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wacidaaman ainaa lamadiinuun qaala hal antum muطalicuuna faطalaca fara'ahu fii sawaa'i ljaxiim markuu arkay naarta iyo cadaabku ka badbaaday iyo nicmaduu ku jiray laga soo loo sheekeeyey baa waxaa la yidhi limili haada falyacmal ilcaamiluun tan oo kaleeto in naar laga badbaado iyo cadaabka afoosha xun ee asxaabujiinkii laga soo sheekeeyey fujaarta naciimkan abraarta iyo jannadana la helo
falyacmal ilcaamiluun dadkii shaqaysanaya ha u shaqaystaan baa layidhi weliba shaqaysigii tan waxay ku dartay tartan ha loo galo sida ilaahay suuratu alcimraan ku yidhi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin suuratu alxadiidna loogu yidhi saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi asamaa'i waalard uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rasulih ambiyadan ilaahay wuxuu ku ammaanay dadkii wanaagsanaay oo dhan inay u tartamaan khayrka ay u degdegaan ambiyada marka laga soo sheekeeyey qasaskoodii fii suurati alambiya inayd baan u malaynayaa ilaahay aakhirkii wuxuu yihi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunanaa ragaban warahaban wa kaanuu lanaa khaashiciin mu'miniintan ilaahay saasoo kale uu ku tilmaamay wayusaaricuuna fi lkhayraati wa ulaa'ika yaa dhammaystiri kara هم المفلحون من الصالحين من الصالحين سورة المؤمنون بهدمية سورة المؤمنون بها القرآن قال الله المائمية حفظيس آل عمران مركب مؤمنين وناك سنانة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقوننا تاسع نمر المؤمنون النهي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بالله أماني أنبينا والله نبغنا عليه السلام تصار يوم نسيه wuxuu yidhi aadaanka iyo safka hore hadday qori tuur mooyeen si kale ku waayaan way qori tuuran lahayd safka hore iyo aadaanka la rabaa tartan inaad u gasho haddaad qof isku qabataan inaadan ka tanaasulin oodan aqbalin oo tidhaahda nasiibkay baan qabaaye waan ku gaa inoo qori tuur qofkaasi tartan halkaa gaadhsiisan khayraadka inaad u samayso baa lagaa doonayaa wa misaajuhu waxaa lagu darayaa min tasniimin isha tasniim la yidhaahdo cabitaan laga keenay baa loogu darayaa caynan xaal ay tahay yashrabu biha ay ka cabbaan iyadoo saafiya almuqarabuuna walidaalika ibnu cabbaas waa kuu lahaa tasniim ilaha iyo biyaha jannada laga cabo bay ugu koraysaa ee ugu sarraysaa muqarabiintana sirfan iyadoo saafiya ay cabbaan wayumsaju liasxaabi ilyamiin asxaabu lyamiinkana waa waxbaa looga dhex daraa see loo kala dajar sarreeya waaye xaafid ibnu xajarna aharkaas waa saxiix buu leeyahayoo bukhaari isagu tasniimtaa tafsiir ahaan buu intaa ugu keenay yaclu sharaaba inay tahay marka ahar ibnu cabbaas inay tahayna cabdi ibnu xumayd baa mawsuul ku wariyey sanadkiina waa saxiix ibnu cabbaas waa ka leeyahay waa ka ibnu xajar casqalaani leeyahay inta ahluljannihii markii lagaga sheekeeyey iyo darajaadkay helayaan yaa dib loogu soo noqday dadkii gaalada ahaa ee fujaarta ahaa waxay samayn jireen adduunka iyo marka laga gooyo oo aakhare cadaab ay galaan mu'miniintu waxay samayn doonaan ay arkaan nimankiioo naarta marbatiimbanaya ay kor ka arkaan ina aladiina kuwa ajramuu dambaabay oo gaalada ahaa kaanuu waxay ahaayeen adduunyada goortii la joogay min aladiina dadka aamanuu rumeeyey yadxakuuna kuwii ku qosla oo ku jeesjeesa waidaa maruu bihim hadday meel ku soo maraanna yataghaamazuuna way isu iljebin jireen ama way istaaban jireenoo kuwii day bay dhihi jireen waidanqalabuu hadday laabtaan gaaladani ilaa ahlihim guryahoodii iyo meelahoodii iyo shaqooyinkoodii iyo xafiisyadoodii iyo reerahooda inqalabuu waxay ku laaban jireen fakihiina iyagoo wax ka sheegga muslimiinta ku afmacaansanaya oo sheeko iyo haasaawo ka dhiganaya waidaa ra'awhum hadday arkaanna qaaluu waxay dhihi jireen inna haaulaa'i kuwaa mu'miniintiihi la daalluuna way dhunsan yihiin wamaa ursiluu loomana dirin calayhim muslimiinta xaafidiina iyagu inay ilaaliyaan oo la xisaabtamaan iyaga shaqada loo diray ma ahayn ee loo abuuraye iyagu xaqa inay qaataan oo ay rumeeyaan ilaahay caabudaan baa loo diray wixii loo diray intay ka tageen bay waxaan loo dirin shaqo ka dhigteen halkan aayadda waxaa lagu sheegay gaaladu dadka iimaanka iyo mu'miniinta ah oo ay ambiyadu kow ka yihiin way ku jeesjeesi jireen markay arkaanna halqabsi iyo haasaawo cay ah bay ka dhigan jireen iyaga iyo nabigooda iyo diintooda intaba way ku jeesjeesi jireen waxay la'ah ka dhigi jireen wax liito hooseeya
dad caqli gaaban oon garasho dhow oon meel dhow fog fiirinaynin dad maskaxda laga xaday oo la majara habaabiyey saasay ugu ciyaari jireen arrinta aayaddu ay sheegtay jumlo iyo duuduub ahaan meelo kalena qur-aanka waa lagu sheegay ambiyadoo dhanna insaan lagu samayn jiray baa la sheegay zuyina liladiina kafaruu alxayaatu اddunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu gaalada waxaa loo qurxiyey adduunyadan dhalaalkeeda waxayna ku jeesjeesaan oy liidaan dadka ilaahay iyo aakhare rumeeyey ambiyadoo dhanna nabiga waa kii lagu yidhi walaqad istuuzi'a birusulin min qablik faxaqa biladiina sakhiruu minhum maa kaanuu bihi yastahzi'uun waa lagu jeesjeesay rushadii ee kaa horraysay kuwii ku jeesjeesayana waxaa asiibay oo ku dhacay adduunkaba waxay ku jeesjeesayeen cadaabkii adduunkaa lagu cadaabay aakharana waa sugayaa tusaale waxaa layna siiyey nabi nuux nabi suu ahaa falabitha fiihim alfa sanatin ilaa 50 caaman buu intaa ugu yeerayey kor iyo hoos buu ula hadlay habeen iyo maalin buu la hadlay gaargaar iyo keliya wadar buu ula hadlay wax kastuu ku sameeyey siduu yidhi inii dacawtu qowmii leylan wa nahaaran falam yazidhum ducaai ilaa firaaran marna waa kii wainii aclantu lahum wa asrartu lahum israaran faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaaran isagii markii ilaahay u waxyooday ee la yidhi cid danboo ku rumayn doonta ma jirto wa uxiya ilaa nuuxin annahu lan yumina min qowmika ilaa man qad aaman waa kii ilaahay haddana u waxyoodoo la yidhi waa la halaagayaa wasnaci ilfulka biacyunina wa waxyina doon samaysaa la yidhahdiyo dadka ku rumeeyey aad ku badbaadaan markii geedihii uu soo gurtay doon samayntii bilaabay bay soo maraan waraa ninkii nabiga ahaa geedo qorow iyo doonyo samayn baad isu beddeshay jees kulamaa mara calayhi wayasnacu lfulka wa kulamaa mara calayhi mala'un min qowmihi sakhiruu minhu qaala in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kamaa taskharuun fasawfa taclamuuna man yaأtiihi cadaabun yukhziihi wayaxilu calayhi cadaabun muqiim mar kastoy soo maraan doontii isagoo samaynayaba sakhiruu minhu way ku jeesjeesaan isna wuxuu yidhahdaa in taskharuu minaa haddaad nagu jeesjeesaan hadda fa innaa naskharu minkum waa idinku jeesjeesi doonaa kamaa taskharuun saa u jeesjeesi doonaa markii cadaabkan ku dhacana waa ku jeesjeesi doonaan markay naarta galaanna waa ku jeesjeesi doonaan saa dartaasaa la tilmaamayaa waxayna gogolxaad u tahay jazahay la kulmi doonaan ee la soo sheegay markay galaan naarta laakhare la tago say ahluliimaanku iyagana ugu riyaaqi doonaan cadaabka iyo naarta ku dhacaysa ay ugu riyaaqi doonaan ina aladiina kuwa ajramuu gaaloobay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwa dadka aamanuu ilaahay rumeeyey yadxakuuna kuwa ku qoslay ahaan jireen way ku maadaysan jireen waidaa maruu bihim hadday meel ku soo maraanna yataghaamazuuna tagaamusku waxaa la yidhaahdaa qofka markaad qof tusayso ama wax tusayso aad rabta inaad wax ka sheegto mar il baad ku tustaa mar taabashaad ku tustaa mar madax baad ku tustaa marba sibaad ugu tilmaantaa hadba munaasabaddu say tahay iyo meesha inta uu kuu jiro marka yataghaamazuuna inta macnee la sheegayba way soo gelayaanoo xaaladaha kala duwan ee qofka uu soo jeedinayo bay ka kala duwanta kii taabasho noqtayna ta u taabtaa kii ilu jabinayana ilbuu u jabiyaa kii madax ugu tilmaamaa kii far ugu tilmaamaya far buu ugu tilmaamaa kii carab ugu tilmaamaya carab buu ugu tilmaamaa midba sidii uu is yidhaahdaa waad ku soo jeedinoo waa ku tilmaami kartaa ee uu isticmaaloo dhanba yataghaamazuunay soo gelaysaa waidanqalabuu ilaa ahlihim reerahooda hadday ku noqdaan waxay ahaan jireen gaaladan adduunka inqalabuu kuwa noqda fakihiina ama faakihiina labada qiraaba iyagoo ku afmacaansanaya sheekadu waxbay ku baxdaa mar walba soomaalidu sooma dhihin dadkuna waa xandaaq dunyaduna waa xaabdaaq sooma dhihin dunyaduna xaabka iyo geedka caleenta ka soo dhacday daaqdaan dadkuna xan bay daaqaan xanta muslimiintaa daaq u ahaydoo ay ku macaanaysan jireen fadhiyada war kuwii xumaa ma aragti kuwii waxay yidhaahdeen
iyagay halhays cay iyo wax ka sheegooda ah bay markay guryaha ku soo noqdaan bannaankana iyagay ku haysteenoo yataqaan masuul xaafadda markay tagaan iyo guryaha reerkana iyaday sheeko ka dhigaan wuxuu bannaanka kala soo noqdae ka sheekaynaya haweenkii iyo carruurtii iyo dadkii guriga joogayna dadkan wax ka sheegooday ku maaweeliyaan ay ku ababiyaan ilmaha yar waidaa ra'owhum hadday arkaanna ishoodu qabato qaaluu waxay dhahay inna haaulaa'i kuwaasi la daalluuna way dhunsan yihiin ninkii baadiyeysnaa oo isagu dadku inay baadiyeysan yihiin u haysta weeye waa fircawnkii ilaahnimada sheegtay ee ummadda gaalnimada ilaahay khayrkii ugu yeedhayey muusihii tawxiidka dadka ugu yeedhayey dadka diintoodaan ka ilaalinayaa lahaa wey innii akhaafu an yubadila diinakum oo yudhira fi lardi alfasaad wey ninkii carruurta yaryarkaa gowracayey baa dad kale fasaad inay keenaa uga baqaya ninkii aniga ilaah ah ku lahaa dadka baa dadka diintoodii tawxiidkii diin in la fasaadiya ka baqaya weligood way socotaa maanta markuu gaalku ku yidhaahdo kuwa muslimahoo muslim fiican aan ahayn baan uga baqaynaa muslimiinta caqiidada inay ka lumiyaan waxaad u soo xasuusataa innii akhaafu an yubadila diinakum kuwii carruurta baabiinayey oo ummadaha madaafiicda iyo B-52ga la dhacayey oo nucleerkiia naab baalka ku hurgufayey oo ummadaha qaxinaya oo qowmiyadahay waddanka ugu yimaadeen hindigii hore iyo daroogada iyo irbadda sunta iyo dhalmalaanta ka dhigayey markuu ku yidhaahdo in mad la fasaadiyaan ka baqayaa fircawn soo xasuuso aabbihii kullu shay qisada waxaa loo soo celceliyahay inay meeshaa ka socoto wax ka mida ogow laakiin weligeed waa bashar iyo aadamo bal hum qowmun taaquuna way wamaa ursiluu looma dirin calayhim iyaga xaafidiina inay ilaaliyaan aadamuhu ku kale isaga looma dirin ayaddaa innagana waa inoo taallaa dadkaa wax ka sheegooda iyo waxay samaynayaan iyo waxay yihiin ilaahay adigu kuuma dirin adigu inaad caabuddo dembigana iska ilaaliso camal saalixa samaysataa laguu diray dad shaqaha ka dhiganin baa lagu barayaa waa dhaqan xun oo dhaqan gaal weeye inaad dad shaqo ka dhigato dadkaa shaqaha ka dhiganin innaga maxaan samaynay jirtiin ku fadhiisanaya kii kolba soo maruu wax ka sheegayaa soomaaliduna dadka yataqaamasuunadaas dadka dabeecad ahaan xanta badan bay ka mid tahay derbiga iyo jirdiinka uu fadhiyo qofkii soo maraba qowmiyadduu dooni ha ahaadee kana day buu yidhaahdaa kaa ma aragtaa markay dadka inay xantaan rabaanna magacyo aan la garanin bay u wada bixiyaan intii qurbaha tagtay baa garane qowmiyaadka muslimiinta iyo muslimiinta aan ahaynba qolo walba magac af soomaaliya ay ula baxeen si markay xamanayaan aanan ugu baraarugin dayday kanday girdiga makhaayad baa la fadhiyaa gidaar baa la fadhiyaa dadkaa maraya cid badbaadaysa ma laha wamaa ursiluu calayhim xaafidiin dadkaa inay dabagalaan oo diiwaan geliyaan camalkooda ilaahay malaa'ig buu u samaystay wa inna calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin qaybna yaxfaduunahu min amri adin laguma dirsanin haddaba wanaag la wadaag haddaadan la wadaagayninna adiga taada iyo dantaada ku mashquul min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacni waxaan lagu dirsanin iska daa falyowma maanta oo qiyaamo qaakhara la joogo oo janniya naar loo qaybsamay oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri la yidhi aladiina dadkii aamanuu rumeeyey yaa min alkufaari gaalada yadxakuuna ku qoslaya waxa haysta iyo catawga iyo cabaadka iyo baryootanka iyo wixii dhiibta iyo igu soo tuurta iyo tuugsigooda markay arkaan cala alaraa'iki sariira korkood bayna yanduruuna ka fiirinayaan holaca haysta iyo cadaabka haysta gidaar baa u dhaxeeya baabun baatinuhu fiihi araxmatu wa daahiruhu dhinaca kalena min qibalihi alcadaabu cadaabkii baa jira arrintaa ilaahay meelo ba'dan buu kaga soo sheekeeyey waxay arkayaan dadka mu'miniintiihi aayaddan soo sheegnay suuratu saafaad ahayd markuu ninkii meesha ugu tago ee wuxuu ku jira arko faalaca fara'aahu fii sawaa'i aljaxiim qaala tallaahi in kidta laturdiin walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin ilaahay baan ku dhaartay ee waxaad ku sigatay saad ii waswaasinaysa eed iigu celcelinaysa war waxaas ma jira adii lahayd inaad halkaa igelisoon gaal noqdaad ku sigtay ilaahay nicmadiisa haddaynan ahaynna kuwa halkaa laga xaadiriya naarta ku jiraan noqon laha
هذا الكاسي وكساو دغ hadlay isaga dib iyo cadaab bay ugu sii filanta muslimiintu waxay arki doonaan kuwii cataabaya oo marna muuminiinta baryaya marna malaa'ikta baryaya mar malaa'ikta baryayaan oo yaa maaliku liqad alayna rabbuk qala innakum maakithun ilaahu naga fududay markay dhahaana waxa la dhigi ikhsaw fiha wala tukallimun ku dulooba oo hayla hadlina hus wariya sababta maxay tahay إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وحال إذن لها الليلين وهذا الكليلين كديدي أدون كدد وحاجة لإلهي الرمية وإله نود مدافع ونون حريسيري كواسات كدقة تنشقوا إن العيدات كوشاستان ku qosashaan baa ka dhigateen taasaaba ilaahay inaad xasuusataan idinka mashquulisay fakihiinaad noqoteen iyagaa shaqa ka dhigateen iyaga sabirkay arrintaa ku sabreen intaad wax ka sheegayseen adkaysteen baan maanta ku abaalmariyey sabirkoodii baan ka abaalsiiyey kuwa liibaanay waa iyaga idinkuna hus ha hadlina waryaa markay quustaan bay muuminiinta u qaylinayaan ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله بيه وانقبلنا أونك مركان أون دلبننا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل واي وسقوا ماء حميما فقطع معاهم بيه أما رزقا كليدا ينسي يغزقون بالاسين شجرة تخرج في عصير الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين بالاسين markaasay dhahayaan biyaha iyo cuntada wax nagu soo tuura wanaada asxaabu naari waxay u dhawaaqayaan asxaab aljannati ana fiidu alayna nagu soo daadiya min almaai biyaha wax kamid aw mimma razaqakum allah ila wixidisi qaalu inna allaha harramahuma ala alkaafiriin ilaahay qaal waa ka xaraantinimay korkana ka daawo atawiisana dhageyso markuu ku baryara kuwa halka ku jirdhe malaa'ikta cadaabaysa hus sharab lehna اللي فاليوم ما أنتوا آخرتنا الجنار رجلي الذين كوي عادتك آمنوا إلهي الرمي بيضحكون كقص دونا من الكفار قالت على الأرائك سريرها كركيدا ينظرون كفيرين يعني هل ثوب الكفار قولك أهل الجنة وأنا قنكرة ربي الله الله يا ملائكتي سو أهل الجنة الله الله يسنا وين قنكرتا أما أهل الجنة بأسنه دونا هل ثوب الكفار قال ذي ملقا أبا المريو ملقا جوي ما كانوا يفعلون وحي سميشة الله إله أبال كود ما قبصدي قال أبالك ما لمريه ذاتك المؤمنين تعده دون أما إلهي أما ملائكتي سا كله دون أهل الجنة هيه نمك إذا كنت جيسي هو خسر شري هل ثوب الكفار وقال ذي ما لقى أبال مريه ما كانوا يفعلون وحي سميشة كورم هذا وحي سميشة ما عركتن سفي عن ملقى أبال مريه مكفر حذين أما مؤمنين تلا ويدينية أما يجا يسوي ويدينية هبل هرت أبال كود ملقا ورابيه نكي مجرم كإنتاعها إنه مرء انتو سال يسجد دايو إننا حكمة إلهي كيرين وحي وسميني يدك إلهي الرميان وكل بيي السوى النار تدبالنا يا وعذابك جوانا إلهي دعوضان وعتوي سنة جيستان وسوق قصير إيمانك أي وقصلان قيب نعمة هذا كمدوي إسنا إنسان الله ود يجهر له قيب عذاب كلا عذاب يا كمدوي قنادة كلا وضع جملة عياضه وحين بريان ضدك إيمانك إيو كفرك عدوك إسكو صار نبي آخر أرنتيو إسجدد سيه هدنا يسوع ذاك دوران يسوع قان دوران كان نبويه النعمة وكان كتير كان نبويه عذابك وكان كتير كان عذابك سوا كل حيسان يا كان نعمدي سنوهير لها واشا الله يطانا يا إلهي كوا جنة قال الله ينقدره سداس كوا الراحيسان الله يرغو دارو هركاسو عشر كأنه كوغي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأهبين